kusoo dhawaada warka Kalsame TV qodobadaan idinayna waxaa kamid ah weerar laga fuliyay caasimada dalka Denmark ee magaalada Copenhagen ayaa faahfaahinay ka soo baxayaan qasaare dhimasho dhaawac ayaa u geystay booliisku waxay sheegeen in baaritaanada ay wadaan ay ku kala ogaanayaan in weerarka uu ahaa mid argagixisay in kale fadeexadna waxay ka dhalatay basaasiin dalka sirdoonka Masar u dhashay oo iyagu basaasay saldhigga Turkida ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho dawladda federaalka ee Soomaaliya arintaas ceeb iyo fadeexad ayaa ay ka wajahaysaa waxaan kaloo eegi doonaa weerar ka dhacay dalka Burkina Faso 27 qof ayaa lagu dilay kadib markii islaamiyiinta dalkaasi ay beegsadeen xarun ciidamadu ay joogeen booliiska dalka Netherland ee Dutchka oo xiray nin u dhashay wadanka Poland dilka saxafi sanad ka hor loo geystay lagu eedeeyay iyo madaxweynaha Iran Ibrahim Raisi oo Mareykanka ku dhaga hadlay sheegayna inaan la ilaawi doonin dhibaatadii ay ka geysteen dhinaca dambiyada dagaal ahaa dalka Vietnam ugu horeyn hadda nagu cusub tahay subscribe dheh oo hel dhacdooyinka dalka qaaradda iyo deegaankaagaba muuqaalka like saar oo sii share garay haddii aad awooddo waad mahadsantahay aan ku bilowno wararka ka imaanaya dalka Denmark caasimada magaalada Copenhagen ayaa sheegaya in halkaasi weerar uu ka dhacay ilaa 3 qofood ayaa la dilay 4 kalena waa la dhaawacay waxa la sheegayaa in weerarkaasi lagu bartilmaameedsaday dad rayid ah oo ku sugnaa meel laga dukaamaysto oo shopping mall ahayd kuna taal magaalada caasimada waxa wararku ay sheegayaan in weerarkaasi loo xiray nin u dhashay wadanka Denmark inuu ku lug leeyahay loo maleynayo qaar kamid warbaahinta gudaha dalkaasi waxa ay saraakiisha booliiska ilaa hadda aysan ka ogaanin xog ku saabsan weerarkaasi waliba cidda fulisay iyo sababta looga dan lahaa intuba ilaa hadda lama xiriirin weerarka inuu yahay mid argagixisay in kale laakiin booliisku waxay sheegeen in baaritaan ay wadaan warbaahinta gudaha ee dalka Danish-ka ama dalka Denmark waxay sheegeen in 4 qof ee dhaawacyada ay soo gaareen ay ku jirto gabar 14 sano jir ahayd muuqaal soo dhigay barta Snapchat-ka ayaa laga arki karay nin u dhashay wadanka Ingiriiska oo heesa ah isla markaana ku baaqaya in loo duceeyo xilli ay ku guda jireen dhismaha dukaanka moolka ah ee weerarka toogashada ah ay ka dhacday waanu naxsanahay iyo ereyo kale ayaa laga soo xiganayay hadalkiisa muuqaal sawir ah oo la soo bandhigay ayaa la arkayay haween caruur iyo waliba rag iyagu cararaya iyaga oo dhex ordayay gudaha moolka xilli toogashada ay socotay ciidamada booliiska ayaa markii dambe xakameeyay xaaladda iyadoo ammaanka ay xaaladda caadi ku soo laabatay markii dambe weerarkaas wili lama oga mid argagixisay inuu ahaayo in kale waa tahay daawadayaal Kalsame TV qaybaha hore ayaa daawanaysaan bal markana jihadiistayaal loo maleynayo inay ahaayeen kooxaha islaamiyiinta ayaa weerar ay ka fuliyeen dalka Burkina Faso waxa la soo sheegayaa in 27 qof ay ku dileen weerarka ayaa laga fuliyay waqooyiga dalka Burkina Faso maanta isniin ahayd ayaa warbixin la helay waxa ay sheegaysaa ku dhawaad 15 qofood oo caruur ay ku jiraan goob kaliya lagu dilay gaar ahaan magaalada Burazo la yiraahdo ee gobolka Kozi dalka Burkina Faso goob kale ayaa 20 qofood qiyaastii la sheegay in waxyeello dhimasho dhaawac ah iyaguna ay ka soo gaareen dableyda hubeysan ayaa waxa ay 5tii galabnimo axadii weerar ay ku qaadeen sida la ogaaday goob ay ku sugnaayeen dad badan mar kaliya ayaana rasaas ooda looga qaaday goobtaas waxa ku geeriyootay ilaa 12 qofood gaar ahaan deegaanka Nimisinguma la yiraahdo ee gobolka Yatenga ee dalka Burkina Faso wadankan galbeedka Afrika dhaca ayaa ilaa 2019 weerarada islaamiyiinta jihadiistayaasha ay kordhiyeen weeraradooda ilaa 2015 dalka ay dariska yihiin Burkina Faso ee Mali ayaa kooxda Al-Qaacida xiriirka la leh ay waayadaas dambe noqdeen kuwa weerar ku bartilmaameedsanayay gobolada kala duwan ee dalkaasi sidoo kale 1.9 milyan oo qofood ayaa guryahooda uga cararay xaalada amni darro iyo weerarada islaamiyiinta ay ka fulinayaan dalalkan dhaca galbeedka qaaradda Afrika ee Mali iyo waliba Burkina Faso waa tahay daawadayaal bal markana aan eegno madaxweynaha wadanka Iran Ibrahim Raisi ayaa caalamka u sheegay in marnaba aysan ilaawi doonin dhibaatadii Mareykanka uu ka geystay iyo dambiyadii dagaal wadanka Vietnam waxa uu sheegay madaxweyne Ibrahim Raisi xilli uu la kulmayay xubno sare oo diblomaasiyiin
ah in aysan marnaba ilaawi doonin dunida dhibaatooyinkii dalka Mareykanka uu u geystay Vietnam. Wuxuu si gaar ah safiirka cusub ee dalka Vietnam Iran u soo magacaabatay uu ka qaabilay warqadaha aqoonsiga ninka la yiraahdo Danjire Wing Quwik Hoy, kaas oo madaxweyne Ibrahim Raisi kulan la qaatay. Wuxuu sheegay Vietnam iyo Iran in xiriirkooda uu yahay mid qoto dheer isla markaana ay sii wadi doonaan xiriirka ku dhisan beeraha, ganacsiga iyo weliba tiknoolajiyadda ee wadankaas uu caanka ku noqday. madaxweynaha Iran ayaa ku dhaga hadlay xukuumadda Washington isla markaana sheegay in marnaba aysan adduunka ilaawi doonin wixii gaboodfal ah iyo dembiyada dagaal ee dhiigga ku daatay ee dalka Vietnam ay u geysteen kol hore. waa hagaaga Kalsame TV ayaad weli la socotaan, bal markana aanu eegno booliska dhajka ee dalka Netherlands ayaa 27 sano jir wadanka Poland u dhashay xabsiga u taxaabay, kaasoo looga shakisan yahay inuu sanad ka hor dil u geystay wariye wadanka Holland u dhashay laguna magacaabi jiray Peter de Vries. ninkan ayaa lagu toogtay wada ku taala magaalada Amsterdam ee dalka Netherlands, waxaana la sheegay in ninkaasi hadda Poland u dhashay loo haysto dilkaasi loo geystay saxafigaasi wadanka Holland u dhashay. ninkan ayaana weli baaritaano ay ku socdaan, inkastoo si damiin ah loo sii daayay baa la yiri. 21 sano jir dhajka u dhashay ayuu ahaa De Vries. 2 qofood ayaa hore xukun loogu riday ninkan oo maxkamad ayaa xukun ku riday lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen dilkaas, laakiin waxa wararku ay sheegayaan in Delano G iyo weliba Camille E oo Poland u dhashay iyo wadanka Netherlands ay ahaayeen 2 qofood ee loo xukumay. wararka waxay intaasi ku darayaan in 14kii bishii hore ee June ciidamada ammaanka ay heleen xogo cusub oo ku aadan dilkii loo geystay saxafigaas Peter de Vries la yiraahdo. booliska Netherlands waxay sheegeen in ay sanad kadib helayaan macluumaad dheeraad ah iyadoo oo toogashada magaalada Amsterdam sanadkii hore 2021 loogu geystay wariye Peter de Vries ay muujinayso culayska siyaasadeed iyo weerarada argagixisanimo ee mararka qaarkood ka dhici kara wadamada Yurubta kale xilli la ogaa Holland in ay weerarada noqdeen kuwa ku yaraaday iyo dambiyada dhacdooyinka loo diiwaan geliyo. gabagabada ayaan soo gaarnay daawadayaal, bal markana aanu eegno wadanka Uzbekistan. waxa ay wararku sheegayaan in 18 qofood la dilay, 243 qofoodna waa lagu dhaawacay. isbuucii la soo dhaafay ayaa rabshado hareeyeen wadankaasi. gobolka Karakal Pakistan la yiraahdo ayaana ay dhacdooyinkan ka dhaceen. warbixinada waxaa la helaya in dhaawacyada 243 qofood ay qaarkood xaaladooda halis tahay la dhigay cisbitaalka ku yaala dalkaasi, isla markaana gaar ahaan magaalada lagu magacaabo Kunur ayaa ay wax ka dhaceen. ciidamada booliiska ayaa in ka badan 500 qofood waxay xabsiga u taxaabeen, kuwaasoo ka qayb qaatay ilaa Jimcihii banaanbaxyada rabshadaha watay ee dowladda looga soo horjeeday. madaxweynaha wadanka Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev wuxuu sheegay inay qorsheynayaan sidii loo heli lahaa wax kasta oo nabadgelyada lagu xaqiijinayo, iyadoo dadkan ay ka hor yimaadeen isbedel iyo afti loo qaadayo dastuurka dalkaas lagu sameynayo. qodobka ugu dambeeyay ayaan markaan eegin. sirdoonka dalka Masar ayaa lagu eedeeyay inay basaaseen saldhigga dalka Turkiga ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho. madaxweynaha Soomaaliya oo hadda ku sugan magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga ayaa wararku waxay sheegayaan in dowladaha Turkiga iyo Masar ay xiisad ka dhex aloosantay. barnaamijka Maqafi Acdam ee ka baxa telefishinka Al Jazeera qaybtiisa Carabiga ayaa toddobaadkan waxa laga baahiyay xogo qarsoon oo ku aadanaa arrinta saldhigga Turkisom ee magaalada Muqdisho ee tababarka lagu siiyo ciidamada Soomaaliyeed. waxaana sirdoonka Masar xubno ka socday oo yimid xilligii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xafladda caleemasaarka ay basaaseen baa la yiri saldhiggaas iyo weliba howlaha uu qabto. waxaa si qoto dheer loo basaasay ciidanka iyo saldhigga military ee Turkiga ay ku leeyihiin Soomaaliya, qalabka yaala, ciidamada jooga, saraakiisha, iyadoo sirdoonka Masar ay dhageysteen
war isgaarsiinta saldhigga yaalla. Madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa dowladdiisa lagu eedeeyey in ay martigelisay sirdoonka Masar ee ku kacay falkan. Wararka ayaa sheegaya in dowladda Turkiga ay aad uga carootay falkan, isla markaana arrimaha hadda madaxweynaha Turkiga Rajab Erdogan iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ay ka wada hadlayaan ay qayb ka tahay arrintaas. Lama oga xiriirka u dhaxeeya dowladaha Turkiga iyo waliba Soomaaliya sida arrintan ay u saameyn karto xilli ay Masaarida doonayaan inay galaangal muuqata ku yeeshaan arrimaha Soomaaliya si la mid ah dowladaha Turkiga Imaaraadka ay hadda galaangalkooda u muuqdo. Waxay Masar iyagoo ka faa'iideysanaya xil magacaabista agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Mahad Maxamed Salaad oo saaxiib dhow uu la yahay saraakiil sirdoonka Masar ay doonayaan in ay taageero ka helaan, isla markaana ay Soomaaliya xarumo sirdoon ka samaystaan. Masar iyo Itoobiya dhanka kale waxaa ka jira xurguf siyaasadeed iyo waliba mid ay isku haystaan dhinaca webiga Niil, waana mid keentay baa la leeyahay in hadda arrimahaas ay Soomaaliya wajahayso culaysyo kala duwan. waxaase la ogaan doonaa ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud siday u maareeyaan culeysyada cusub ee soo kordhaya. waa hagaag guud ahaan daawadayaal intaas aynu kusoo gabagabaynaynaa wararka caalamka oo aad kala socoteen Kala Samee TV. intaan wararkan oo kale dib isku arki doonno, nabadgelyo.